الله الحمد لله waxaan joognaa magaalada Qoryoole oo faraxsan run ahaantii sida qurux badan noo soo dhaweysay shalay inaan ila joogno aadan ugu faraxsanahay waan si jeclaanahay inaan maalmo joogno waxaan ku faraxsanahay in dadkeenan aan wax u qeybinayno waxa soo ahaa in maxaa la yiraahdaa umada kale waxa la siiyaa cunto ay karsadaan la siiyaa anagana maanta waxa qeybinayna weelka wax lagu karsan lahaa marka taas waxay ka turjumaysaa inaan haysano badarka la karin lahaa oo weel kaliya dadka ay u baahan yihiin iyo maxaa la yiraahdaa bacdi oo guyaha la saaran lahaa alxamdulillah dadaan haysan nimcadaas ilaahay hanoo siyaado anagana inta haysan waxaan leenahay ilaahay ayagana ha siiyo insha Allah gabdhaha quruxda badan meesha fadhiyo run ahaantii oo ku faraxsanahay maamooyinka ku xumaa intaad meesha fadhidaan korkiina ku hadleynana run ahaantii waxaan ku faraxsanahay idinkoo weelashi iyo darbaaladii la idin siiyay waxaan rabaa daraska iyo dadka kale oo maxaa la yiraahdaa oo idinka oo kale ah hadii inaad idinkana wax ka sii gaarsiisaan insha Allah ilaa hal galaas ba ahaada qof siiso waxbu maxaa la yiraahdaa sadaqay ku tahay adigana marka waxaan sii gaarsiiyay umada kale intaad qofka kale idinkana maxaa la yiraahdaa magaalada dadka ma wada isku mid ma ahan intaan ma ahan dadka run ahaantii 10 jabaar kala dhiman marka waxaan rabaa walaalihiin kale idinkana sii gaarsiiyo insha Allah waa mahadsantihiin